jinsiga iyo qowmiyadda Soomaalida xadaaradda iyo taariikhda laga hayo saldanadii Warsangeli waa tan ugu horeysa baarka sarana ka jirta kuwaas oo kamida boqortooyooyinkii ka hana qaaday ee dhulka Soomaalida saldanadan kaliya baarka hore oogama jirta taariikhda Soomaalida ee sidoo kale xadaaradda mandaqada Afrika iyo Asia ayay kamid ahayd xadaaradihii iyo bulshooyinka hormuudka u ahaa waxayna ku jirtaa kuwii ugu horeeyay ee ka hana qaaday careed fadlan haddaan ugu cusub tahay YouTube-ka subscribe saar bogana hubi inuu follow ku yahay taariikhda saldanada iyo xadaaradda Warsangeli waxay soo bilaabatay sanadkii 1218 iyadoo soo taxnayd ilaa sanadkii 1960 waa saldanad jirtay in ka badan 700 oo sanadood waxay ka talinaysay saldanadaasi dhulka Soomaalida ee ku dhararan waqooyi bari ilaa koonfur bari dhulkaas oo ka bilaabma gobolka Sanaag gobolka bari ilaa Nugaal oo markii dambe ay rug dhigatay magaalada Ayl waxaana loo yaqaanay saldanadaasi saldanada xeebaha Maakhir garaadkii aasaasay saldanada Warsangeli waxa la oran jiray Cabdullaahi Kooke Maxamuud Harti waxaana loo yaqaanay garaad dhidhin waxa uu ahaa nin ka aqoon badnaa hogaamiyayaashii saldanadihii ka jiray mandaqada adduunka sida kuwii ka jiray Yaman ilaa saaxilka Carbeed sida ay wariyeen wargeysa shisheeye laga soo bilaabo qarnigii 13 ilaa dabayaaqadii qarnigii 19 muddadii u dhaxaysay aasaaskii iyo burburkii boqortooyada Warsangeli waxa soo maamulay 25 farac oo garaad dhidhin ku abtirsada dhulka ay ka talinaysay saldanada Warsangeli waa dhul leh khayraad dabiici ah oo tirabeela oo ay ku jiraan macdan qani ah sida dahab jidaalka dhuxusha iyo macdan kale oo badan sidoo kale waxay ka talinaysay dhul xeebeed dheer oo kalluun badan leh oo ay kamid tahay xeebta Ceelaayo ilaa Maydh oo kamid ah meelaha ugu kalluunka badan geeska Afrika Laas Qoray waa xarunta saldanada Maakhir sidoo kale dhulka boqortooyada waxa ku jira buuro iyo dooxooyin dalxiiska loogu hamiyo sida buuraha Calmadow ee quruxda looga hadhay saldanadu waxa ay qayb ka noqotay heshiiskii maxkamiyadda Ingiriiska iyo Somaliland iyadoo taariikhdu markay ahayd 27 bishii koobaad 1886 ee heshiiskaasi qaadatay heshiiskaasi waxa loo yaqaanaa oo adduunka ugu jira heshiiska Warsangeli ee Ingiriis waxa uu ka dhacay Laas Qoray waxaana uu saxiixay Suldaan Cawl Suldaan Maxamuud Cali Shire waa ninka ugu taariikhda dheer saldanada Warsangeli bilowgii hore ee kacaankii daraawisheed Sayid Maxamed Cabdilla Xasan waxa uu ku qanciyay reer Cali Shire inay qayb ka noqdaan halganka gaalala dirirka ah ee uu wado waxa uu ku guuleystay in garaad Cali Shire oo nool uu Suldaan Maxamuud oo wiilkiisa u caleema saara saldanada Warsangeli iyo inuu guursado Bulla Cali Shire oo Bulla Shabato loo yaqaanay isku dhac ayaa soo ifbaxay Maxamuud nacaynka ayuu tolkii ku hubsaday waxa uu isbahaysiye la yeeshay boqor Cismaan oo ah boqorkii Majeerteen dagaal badan ayaa dhaxmaray Suldaan Maxamuud Cali Shire iyo seedigii Sayid Maxamed Cabdilla Xasan waxaana uu caansanaa dagaalka la yiraahdo Habar Humbullo dibti buureed daraawiishna u taqaano Maduqaynay reer bari waxa uu ciidanka dagaalka ka qayb galay ee boqor Cismaan iyo saldanadii Warsangeli ka socday isku dhamaa 10686 nin waana dagaalka uu sayidku ka tiriyay dacwad kalena waa ina mashare hadalan deeqsiiyay aday deershay goortaan ahaa duri xigaalka ay adigay dafiray sidii anoo duul shisheeye ah ee waataynu darisnee adaa daawadii furay ee doolaalo adiga ugu tagay gaalka duufka leh ee maanta dubihii kugu dhacay duxiha ka raacdo ugu dambeyn jabkii daraawiish suldaankii Warsangeli waxa loo qaaday jasiiradda Shiisalis halkaas oo gumaysiga Ingiriisku uu ku xiray inta la soo daayay kadib sanadkii 1954 boqoradii Ingiriiska ee dhawaantan bakhtiday ayaa suldaanka caadan ku guddoonsiisay bilad baran ayuu sanadkii 1960 Suldaan Maxamuud Cali Shire ku geeriyooday Suldaan Saciid Salaan oo hadda joogana waa suldaankii 27aad ee soo mara kaas oo ka soo farcamay Suldaan Dhidhin waxaan ahay Muxiidiin Cabdi juqraafi ayaad igala socotaa